filimkeena qaybtiisa hore waxay noogu joogtay George oo loo sheegay in xaaskiisa ay u leedahay uur, isagana ma siinayo wax ahmiyad ah. Asxaabta haddaanan soo daawan muuqaalkii hore ma fahmaysid filimka. Si aad u fahanto filimka, soo daawo muuqaalkii hore. Waxaad ka daawan kartaa muuqaalkan dhexdiisa oo waxaa xagga sare kuu soo dhigaya kaarkaas. Haddii kalena description-ka ayaan kuu soo dhigaya ka daawo. maalinkii xigay George waxa uu la tartamay Maxamed Cali. Maxamed Calina waxa uu ahaa mid ku jeesjeesaya, laakiin dadkoo dhan waxay aaminsanayeen in George uu guuleysanayo maadaama ciyaartii hore ku soo guuleystay. George-na markuu arkay in Maxamed Cali uu ku jeesjeesay waa iskaga aamusayaa. Isagana waxa uu rabaa in marka ciyaarta bilaabato uu kaga jaro wax kasta uu ku sameeyay. Intaa kadib waxaa bilaabmaya ciyaartii u dhaxaysay Maxamed Cali iyo George. Labadoodana waxay bilaabayaan inay feertamaan. Intaa kadib George waxa ka tagay miirka. Maxamed Calina waxa uu bilaabayaa inuu si xun u garaaco. George-na waxa uu waayay intaa kadibna George waxaa ka guuleysanaya Maxamed Cali. Macalinkana markuu arko arrinkaas waa uu ka cadhoonaya. Intaa kadib waxa uu la hadlaya xaaskiisana waxa uu sheegaysaa in uu furo maadaama George yahay mid aan ahmiyad siinayn, kaliya uu ku mashquulsan yahay boxingka. Mar kale waxaan arkaynaa George oo la kulmay hooyadina waxaa ku dhacaysa maxaa u dili weyday ninka. Isagana waxa uu sheegay inuu waayay miirkiisa. Sidoo kale waxa uu sheegaya intan ay tahay guuldaradiisii ugu horreysay, aanu qaato guuldaradiisa maadaama isaga uu ku soo guuleystay ciyaaro badan. Intaa kadibna George waxa uu tagayaa macalinkiisana waxa uu sheegaya in George uu isbedelay. George-na aanu ahayn sidii markii hore uu ahaa. Intaa kadibna George waxa uu imanaya warqad, waxaana loo sheegay in xaaskiisa ay joogto dhakhtarkana waxa uu George u sheegay in xaaskiisa iyo cunugiisaba ay ku jiraan halis, waxaana u sheegaya in aanu badbaadin karin labadoodaba, kaliya uu badbaadin karo mid ka mid ah. George-na waa uu baxayaa, waxaanu ka baryayaa ilaahay in labadoodaba uu badbaadiyo. Haddii qof uu dhimanayana uu dhinto cunugiisa, xaaskiisana ay u badbaado. yar kadib George waxa uu ku soo noqonayaa dhakhtarka, waxaanu ogaanayaa in xaaskiisa iyo cunugiisaba ay badbaadeen. George-na markii uu ogaaday arrinkaas aad ayuu ugu farxayaa, waxaanu u mahadcelinayaa ilaahay. Maalinkii xigay George waxa uu ka qaybgalayaa tartan kale. Intaa kadibna George waxa uu bilaabayaa inuu la dagaalamo ninkan, laakiin George sidiisi la mid ayuu waayayaa miirkiisa, isagana waa laga adkaanayaa. George-na waxa uu imanayaa qolkan isagoo xanaaqsan. Intaa kadibna macalinkiisa ayaa u sheegay inuu istajiyo, laakiin George waxa uu ahaa mid xanaaqsan. Intaa kadib George waxa uu ku dhacayaa dhulka, qof kastana waxa uu moodayay in uu dhintay. In yar kadib George waa uu soo kacayaa. Maalinkii xigay George waxa uu iskugu yeedhayaa dadka, waxaanu u sheegayaa inuu iska dhaafay boxingka. Kadibna markii uu soo baxay macalinkiisa ayaa arkaya. George-na waxa uu sheegaya inuu iska dhaafay boxingka. Macalinkiisana aad ayuu uga xumaanayaa markii uu ogaaday in George uu iska dhaafay boxingka. Sidoo kale George waxa uu sheegay in ahmiyad badan uu siin doono familkiisa, kuwaas oo uu kaga mashquulay boxingka. Waxaanu macalinka u sheegayaa in uu cunug yar dhalay. Maalinkii xigay George waxa uu u tagayaa Maxamed Cali, waxaanu u sheegaya in ay saaxiibaan. Maxamed Calina waa uu ka aqbalayaa, waxaana noqonayaan saaxiibo. Intaa kadibna waxa uu tagayaa xaaskiisana waa uu raali gelinayaa. Xaaskiisana waa ay ka ogolaanaysaa markii ay ogaatay in iyaga dartoodu iskaga dhaafay boxingka. Maalinkii xiga waxaan arkaynaa George oo isku bedelay dhiirigeliye, isagana waxa uu dhiirigelinayaa dadka maraya wadada. Dadkana dhammaantood waa ay ku qoslayaan markay arkeen in George uu isku bedelay dhiirigeliye weyn. 10 sano kadib waxaan arkaynaa George oo isku bedelay dhiirigeliye weyn. Intaa kadibna waxa uu imanaya hooyo doonaysa in wiilkeeda la baro boxingka. Sidoo kale waxay u sheegaysaa in wiilkeeda uu ku waashay boxingka, isagana waa uu ka diidayaa in uu baro boxingka. Intaa kadibna George waa uu iskaga tegayaa. Maalinkii xigay George waxa uu TV-ga ka arkayaa wiilkii uu diiday inuu baro boxingka, kaas oo noqday tuug booliskana ay qabteen. Intaa kadibna George markii uu ogaaday arrinkaas aad ayuu uga xumaanayaa, waxaanu xaaskiisa u sheegayaa in ciyaalka uu samaynayo goob ay ku bartaan boxingka. George-na waxa uu bilaabayaa in carruurta danyarta uu sameeyo goob ay ku bartaan boxingka, waxaanu gelinayaa lacag aad u fara badan. Irish oo ahaa ninka u maamula lacagtiisa ayaa arkaya in George uu ku khasaarinaya lacagtiisa waxyaabo aan waxba tarayn. George-na waxa uu samaynayaa carruurta meesha ay ku baranayeen boxingka. Yar kadib meesha waxaa ka tegaya leerka. Kadibna George waxa uu aadayaa bangiga. Arrinta la yaab kale ee George loo sheegay ayaa ah in bangigiisa uu maran yahay. George-na waa uu cadhoonayaa markii uu ogaaday in bangigiisa uu maran yahay, waxaanu ogaanayaa in Irish uu ku ciyaaray lacagtii oo dhan khamaar. Isagana waxa uu bilaabayaa in Irish uu dilo, laakiin waa uu iska dhaafayaa George maadaama uu yahay qof wanaagsan. Maalinkii xigay George xaaskiisa waxay u sheegaysaa in aanay haysan lacag ku filan. George-na markii uu ogaaday in aanu haysan lacag ku filan waxa uu dib u bilaabayaa boxingka. Xaaskiisana markii uu ogaatay in George uu dib u bilaabay boxingka aad ayay uga xumaanaysaa maadaama George yahay qof da'diisa ay aad u weyn tahay. Maalinkii xigay George waxa uu dib ugu noqonayaa macalinkiisa, waxaanu u sheegay in aanu haysan lacag ku filan. Sidoo kale waxa uu sheegay inuu doonayo inuu dib u bilaabo boxingka. Macalinkiisana waxa uu sheegay in da'diisa ay aad u weyn tahay, sidoo kale culayskiisa uu aad u sarreeyo. Haddii uu rabo inuu boxingka ku soo laabtana uu iska soo rido cayilka faraha badan. George-na waxa uu bilaabayaa inuu jimicsado si cayilka faraha badan uu iskaga rido. Maalin kastana George waxa uu ahaa mid jimicsada si
cayilka faraha badan uu uga dhaco. Ugu dambeyn George waxa uu ku guuleysanayaa in miisaankiisa uu hoos u dhigo, waxaanu noqonayaa qof dhuuban oo ku habboon inuu ciyaaro boxingka. Isagana waxa uu dib ugu soo laabanayaa macalinkiisana markii uu arkay inuu iska soo riday cayil fara badan, aad ayuu ugu farxayaa waxaana u sheegayaa inuu dib ugu soo laabto boxingka. Intaa kadib George waxa uu ka qayb galayaa ciyaaro fara badan, waxaanu ku guuleysanayaa ciyaarahaas ilaa markii dambe uu soo baxay finalka, kaas oo ahaa championka adduunka ee boxingka. George-na waxa uu soo baxayaa finalka kadib markii uu ka soo guuleystay kuwa fara badan, waxaanu la tartamayaa nin isaga ka da'yar. George-na waxa uu maaraynayaa inuu ku guuleysto championka, waxaanu saas ku noqonayaa guuleystaha championka adduunka ee boxingka. Asxaabta filimkeena halkaas ayuu ku dhammaaday. Filimkana waxaa laga sameeyey qiso dhab ah oo dhacday. Sidoo kale waxaan filimkeena ka faa'iidaynaa in aanu qofku isdhiibin oo uu ku kalsoonaado naftiisa. Asxaabta muuqaalkeena maanta halkaas ayuu ku egyahay. Haddii muuqaalka ka heshay like saar si aan u soo badino muuqaalada, aad ayay u mahadsantihiin. Waa inoo muuqaalkan muuqaalka xiga.